بسم الله الرحمن الرحيم وعبد الرشيد محمد كلاس فوقان أرق وإن فينتو بينه معده waxaan ka hadlayaa mawduuca maanta waa iska u dhigan yahay waxaan u sheegaynaa Soomaali sida ama ogaadeenaya ama Soomaali galbeed cid walba waxay taqaano inaan bal waxyaabo yar oo fariimo yar meesha u duubo insha Allah Ilaahay ku anfaco waxaan rabaa horta inaan u tacsiyo dadkii lagu xasuuqay garbaciise inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay ummadda Soomaaliyeed iyo ehelkoodiiba samir iyo iimaan ka siiyo iyo kulligeenba mid kale waxaan rabaa waxa ka qaldan Soomaalida bariyahan dilaac bay noqotay nugeel waxa jirta qofka dagaal ku dhinta bay markaa soo dhigaan macal sawirkiisii macal tacsidiisii qofku moodan ilaahay buu dhintay shil baabuur ku dhintay dadkaas tacsiidooda la soo dhigay nin dagaal ku jira tacsiisa lama soo dhigo taasi nugeelka iyo jilaacay kamid tahay horta dabeecadaha la iska daayo social media aqoon uma lihidin dagaal aqoon ma lihin anu waaga sida loo jilcay baan fahmi lahaa iyo waqtiga sida la noqday dad dagaalamaya ma aha ina geeriyooda la soo dhigo taasi waa taa waxaan taariikhda kullee qoraysa wada mar walba waxa iyadoo dhicimaanu ka sii hadalaaye mar hore aan idin sheegnay in dhulkan la qabsan doono oo xabashi iyo Ethiopian qabsan doonaan canfar iminka canfar adduunka ugu tabar yar yeen iska celin karnaa hada waa canfar hada waxa aynu ka cabaarayna waa canfar markaas wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh taasoo soo gabagabanaya laakiin mawduucyada waa soo dhigi doonaa insha Allah waana salaamaya fogaanada aragooda la fiintu been wacdo